السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال habeen wanaagsan magacaygu waa Cabdulle Nadaara waxaan ahay soo saaraha barnaamijyada ka baxa kinaalka hoyga bulshada oo ah saaxiibka bulshada waliba kugu dhacday intaad iskoolka ama jaamacadda ku jirtay inaad jeclaato gabar ama si ay gabadhi ku jeclaato wiil aad classmate tihiin ama aad isku fasal tihiin mowduuceena wuxuu la xiriiraa jacayl yaraan qof ku galay balse daruufo soo food saaray awgeed iyagoo yaraa inay kala haajiraan magaaladii ay ku noolaayeen balse ugu dambeyntii mid kamid kii kale nasiibku kulmiyay isagoo darbi jiif ah cajiib ku soo dhawow mowduuceena xiiso gaar leh fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waan mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا waxa ay heshay isagoo darbi jiif ah oo darooga dishay waxa uu ahaa ciyaalimadeedii wiilka ay iskoolka ugu jeclayd ay indhaha ka daawan jirtay ayna isku fasal ka hayeen wuxuu aad ugu fiicnaa dhammaan maadooyinka iskoolka wuxuuna ahaa arday ku xariifa dhammaan xiisadaha lagu dhigo iskoolka ardayga ugu fiicnaa iskoolka Mary waxa ay weyday Janice ay u sheegato xilligaas inay jeceshahay laakiin nasiib darro iskoolka markii uu dhameeyay tuulada way isaga guureen isaga iyo qoyskiisiiba nolosha magaalada Master Francis waxay ka dhigtay daroogiste darbi jiif ah oo nolosha ka sabray Mary oo maqashay nolosha wiilkii ay yaraanteedii isku iskoolka ahaayeen ay qaadan weyday marxaladda uu ku sugnaa Master Francis oo looga warramay muddo markii ay raadinaysay ay heshay isagoo darbi jiif ah wayna ka soo waday noloshiisa waxay geysay meelaha dadka daroogada lagaga daaweeyo waxayna bedelmay muuqaalkiisii iyo noloshiisii guud ahaan waxa uuna cagta saaray nolol uu kaga badbaadayo kaga sii mid ahaanshaha daroogistayaasha uu waqtigu u saamixi waayay inay khayrkood la tartamaan haddaba markii uu fiicnaaday ayay u sheegtay inay jeclayd waqtigii iskoolkeeda ayna rabtay inay nolosha la wadaagto haddaba gunaanadkii mowduucani hadda waa lamaane ku wada nool oo aad isku jecel Francis waxa uuna ku nool yihiin farxad iyo reereyn wuxuu yidhi isma lahayn qof ayaa dunida jooga oo adigoo darbi jiif ah ku jeclaan doona oo dadkana ka dhaweysan doona balse maantaba way dhacday hadalkiisa ayuu ku soo gabagabeeyay sida Marina iyadoo hadalka ka daba qaadatay waxay tiri qofka wax jecel qalbi ayuu arkaa balse qolof ma arko intaas ayaan ku soo gabagabeeyay mowduucani caawa intaan ku kulmi doono mowduuc la mid ah fi amaanillah